السلام عليكم صاحبada ku xiran kanaalkayga ayuu kusar mar kale ku soo dhawaada maanta waa barnaamijkii aan ku sameynay isbarbardhig laba youtuber ee ugu caansan dunida qaasatan kuwa Soomaalida soo caawa waxa diiradda noo saaran oo aan isbarbardhig ku sameyn doonaa laba youtuber ee caan ah ee waliba ay ku nool yihiin dalka Malaysia magacyadooda waxay kala yihiin Fadil Dumdum iyo Kamal Abdul labadaas youtuber waa wada naqaana Fadil Dumdum wuxuu ka mid yahay teamka ay ah Wrong Target and Kamal Abdul asagana wuxuu ka mid yahay asxaabta team Enjoy Zivani kala kicis waxyaabo badan ay isticmaalaan waa asxaab funny ah ee joogo dalka Malaysia soo labadaas youtuber ayaa caawa noo saaran miiska soo waxaan bilaawnaa practical markii aan imaano waxaan tegaynaa aan soo qaadan doonaa in qofka koowaad Fadil Dumdum wuxuu saaran yahay halkan waxaan tegaynaa linkigan control C ayaa leenahay kadib waxaan leenahay control V kadib waxaan leenahay search isla markuu raadiyo xogta ee ku saabsan YouTube-ka number of total subscribers wuxuu haystaa 69,500 subscribers ayuu haystaa and total video views kana wuxuu haystaa 2 million total estimated earning dhammaan inta YouTube oo lacagta ka qaatay waa $9,983 average earning per video halkii video wuxuu ka sameeyay lacag $210 ayuu ka sameeyay soo hada waxaan haysanaa in Fadil in uu YouTube ka sameeyay $210 halkii video soo waxaan asinaa dhanka kale oo ah Kamal linkigan ayaa leenahay copy waxaan tegaynaa halkan ayaan ka tiraynaa kadib waxaan leenahay control V kadib waxaan leenahay search markii halkan oo nasoo badhigo Kamal Abdul number of total subscribers wuxuu haystaa 59,500 ayuu haystaa number of total video views kana wuxuu haystaa 4 milyan ayuu haystaa total estimate in dhammaan inta lacagta YouTube ka qaatay waxa waaye $12,597 $12,597 ayuu ka qaatay dhammaan inta YouTube lacagta ka qaatay and average in per video halkii video lacagta ku sameeyana waa $115 soo halkaas waxaan ognahay in subscribe ku badan yahay Fadil laakiin total video views kana waxa badan Kamal Abdul lacagta YouTube kaga sameeyna waxa badan Kamal Abdul soo hada waxaan dareemeynaa in markaan isbarbardhig ku sameyno in uu Kamal in xagga lacagta views-ka uu ka badan yahay laakiin subscribe-ku laga badan yahay soo hadaba waa barnaamijkii isbarbardhig aan ku soo qaadanay labada youtuber ee ugu caansan waliba aan isbarbardhig ku sameynayna xagga lacagta subscribe-ka views-ka iyo fiidiyaasha fadlan kanaalka soo dhawaada adigoo mahadsan وعليكم السلام ورحمة الله